isuduwaha wasaaradda qorsheynta gobolka Saraar mudane Yaaqoob Axmed Warsame oo maanta wareysi gaar ah warbaahinta qaranka ku siinaya xafiiskiisa ayaa waxa uu ka xog warramay xiriirka ka dhaxeeya hay'adaha caalamiga ee ka howlgala gobolka Saraar iyo waliba NGO-yada kala duwan ka shaqeeya gobolkani. Isuduwaha waxa uu tilmaamay in jiraan NGO-yo iyo hay'ado kala duwan kuwaas oo iska soo gala gobolka Saraar isla markaasina aan wax sharci ah ka haysan wasaaradda qorsheynta qaranka. Waxaana ugu baaqay guud ahaanba hay'adaha caalamiga ee gobolka Saraar ka shaqeeya iyo ururada iyo NGO-yada kala duwanba inay iska soo xaadiriyaan xafiiska wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saraar si loo hubiyo buuri shaqooyinka kala duwan ee bulshada u qabtaan. ugu horeyn maanta aan uga mahadcelinaynaa booqashada uu nagu yimi warbaahinta TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland si aan warbixin uga siino xafiiska wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saraar. maanta waxaanu doonaynaa inaanu shaacino laba qodob haddaan nahay xafiiska wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saraar degmada Caynaba. labada qodob ugu horeyn qodob waa qodobka hay'adaha ka howlgala gobolka Saraar guud ahaan gobolka Saraar. qodobna waa qodobka ururada ama NGO-yada iyaguna ka howlgala gobolka Saraar. hay'adaha ka howlgala gobolka Saraar dhammaan waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan hay'adaha ka howlgala Jamhuuriyadda Soomaaliland maxay tahay kuwa islaamiga iyo kuwa qaramada midoobay inay si wanaagsan oo hufan oo hagaagsan ugu howlgali karaan guud ahaan gobolka Saraar. uu gobolka Saraar yahay mid tuulo kasta iyo degmo kasta iyo meel kasta oo ay tagaan gobolka Saraar kamida uu yahay meel ay hay'adu degi karaan oo ka shaqeyn karaan amaankooda isku haleyn karaan hawlo mashaariicyo ay ka fulin karaan. taa waxaan leeyahay hay'aduhu guud ahaan hay'adaha ka howlgala Soomaaliland ha ku soo dhiiradeen gobolka Saraar hadday noqon lahayd xagga horumarinta iyo hadday noqon lahayd xagga emergency-ga. midna waxaan doonayaa inaan iyagana baaq u mariyo hay'adaha hadda ka howlgala gobolka Saraar. hay'adaha ka howlgala gobolka Saraar waxaan ugu baaqaynaa inay xafiiska wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saraar soo maraan oo ay saxeexaan warqadda la dhaho monitoring sheet-ka ama warqadda dabagalka hay'adaha iyo qiimeyntooda ah. warqadani waxay naga caawinaysaa hay'ad kasta oo gobolka soo gasha in magaceedii la ogaado, in project-ka ay wado la ogaado, wasaaradda ay partnerka la tahay ama line ministerka la tahay la ogaado, cidda laga xiriiriyo hay'adda la ogaado, sidii hay'adii loogu reebi lahaa xog dhammaystiran oo aanay hay'addu intay soo gasho magaalada meel intay magaalo iska tagto aanay waxay doonto ka fushan iyadoo aan maxay tahay xafiiskii wasaaradda qorsheynta ogeyn. hay'adaha aan xafiiska wasaaradda qorsheynta ee gobolka Saraar soo marin waxaanu ka diyaarinaa report mashaariicda ama ay wadaan ama ay dhisayaan ama ay haddeer wadaan ama ay horeba u wadeen inaanu warbixin ka soo saarno baanu u ballan qaadeynaa. hay'adii wanaagsanaatana inaanu ku amaano oo warqadaas saxeexda. warqadaasi waxay hay'adaha iyo gobolka iyo guud ahaanba ka caawinaysaa in hay'adii markii ay gobolkii soo gasho wixii ay qabanaysay la ogaado, halkii ay ka qabanaysay la ogaado, cidda ay u qabanaysay la ogaado, magaalada ay ka qabanaysay la ogaado, wixii ay wax ku qabanaysay la ogaado. waayo hay'aduhu de waxay u qabanayaan wax dadkeenii iyo dalkeenii iyo deegaankeenii haddana wax qabiyo ah ama wax ka dhiman yihiin inay u qabtaan ama wax dhinac ka raran oo maxay tahay ama aan transparent ahayn ama cabasho ka timaado dee taa waxaan u maleynayaa inaan lama ogola. marka hay'adaha waxaan ugu baaqayaa gobolka Saraar ka howlgala inay xafiiska wasaaradda qorsheynta soo maraan, inay iska diiwaan geliyaan, inay warqadda monitoring sheet-ka ama warqadda dabagalka hay'adaha gobolka ay saxeexaan kadibna aanu u dirno wasaaraddii line ministerka la ahayd. hadda waxaa jira hay'ado aanu u yeernay oo markii ay dhaheen wasaaradda gobolka ka dhisan aanu line minister la nahay aanu wasaaraddii weydiinay, wasaaradii qaar ay garan waayeen magacii marshuucii lagala shaqeynayay markaanu noo sheeg ay marshuucii magacii ay garan waayeen hay'adda dhan ay kala shaqeynaysay ay garan waayeen. taas waa caqabad gobolka taalo weeyaan insha Allah, laakiin waxaanu doonaynaa inaanu ka gudubno. hay'adaha guud ahaan waxaan ugu baaqayaa inay gobolka soo degaan ka howlgalaan wax u qabtaan. annaguna guud ahaan haddaan nahay xafiiska wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saraar iyo guud ahaan shacabka inaanu soo dhaweyn doono, la shaqeyn doono, u fududeyn doono. talabaad waa ururada iyo NGO-yada ka howlgala gobolka Saraar. maanta waxaan doonayaa taariikhdu tahay 7 bishii 3 2018 inaan baaqan ugu diro ururada ka dhisan gobolka Saraar ama NGO-yada ka howlgala gobolka Saraar. waxaan ugu baaqayaa maanta ay taariikhdu tahay 7 bishii 3
inay diiwaangelintii ururada ee sanadka 2018 ka bilaamatay ururka ama NGO-ga aan iska soo diiwaangelin gobolka Saraar xafiiskiisa wasaaradda qorsheynta waxaan u aqoonsanaynaa urur aan inaan wahayn urur caadiya ama urur la isku halayn karo ama NGO tartami kara ama wax qaadan kara diiwaangelintu waxay soconaysaa ilaa 15 bisha 8 cashay soconaysaa 8 cisho urur kasta ama wadaamagoha ka dhisnaado ama caynabaha ka dhisnaado ama oogaha ka dhisnaado ama dhanaano ama ceelal ama waridaad ama maxay tahay degmo kamida gobolka Saraar ka dhisnaado inuu iska soo diiwaan geliyo xafiiska wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saraar oo aan ku diiwaan gelin doono jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland haynaba